deegaanada ismaamulka Soomaalida galbeed ama Soomaalida Ethiopia. maanta maalintii labaad ayaa jigjiga iyo sidoo kale diiradhaba ama si guud deegaanada ismaamulkaasi waxa uga jiray xaalad kacsan kadib markii halkaasi ay shalay togaleen ciidamada Ethiopia. caawa xaaladihii ugu dambeeyay waxaan ka wareystay Cabdirashiid Cali oo kamid ah dadka ku sugan magaalada diiradhaba oo maanta ayuna shaqaaqad ka dhacday ama rabshado ka dhaceen kadib markii dadka halkaasi degan ee Soomaalida ah iyo Oromada ay isku dhac ama waa isku dhaceen. walaal xaaladdu sidii shalay ka degan tahay ilaa xad maanta wax rabshada iyo wax dhawaataan midna kama dhicin wax dagaalama ma uusan ka dhicin maanta. marka xaaladdu aad bay degan tahay maanta marka laga rabo magaalada diiradhaba ku suganayo oo isku dhacyo yaryar ay ka dhaceen laakiin wax khasaaro weyn uusan ka dhacin. sharaxaad kooban inaga sii diiradhaba maanta maxaa ka dhacay? walaal dirda waxaa ka dhacay maanta madaxweynaha deegaanka koox sameeyey oo la yidhaaho eego oo sida balbakiyadii masar oo kale ah ama gaangistariin lacagtaas oo lacagta wax ku kharbuda ayaa weeraray dad Oromo oo meel ku shirsan dhagax iyo baangadiyo waxaa ku weeraray kadibna qowmiyadda Oromadaba ayaduna weerar soo qaaday oo dad shacab oo Soomaaliya iyo xaafado Soomaaliya dhagax tuur waxay kaasoo kale ah kusoo qaaday ilaa adu casarkii yahay wixii ka dambeeyay iska degta xaaladdu. diiradhaba ay rabshadahaasi ka dhaceen imise ayaa ku dhintay dhaawacsi ma jira bal xaaladda ama rabshadahaasi maxaa khasaaraha oo ka dhashay? wax dhimasho oo maqlo xaqiiqada ma jirto waxaana dhowr guri oo la gubay ilaa 3 guri iyo dhagaxto dhagaxa wuxuu soo gaaray dadka kullu ku dhacay jiraan inkastoo tirada rasmi ah hadda xaqiijin karin laakiin waa dhagaxto iyo wax noocaas oo kale. dhanka jigjiga waxaa laga sheegayaa sidoo kale in Oromadu ay maanta guryo Soomaali ah galeen oo dad halkaas ay ku dileen iyana maxaad inoo sheegi kartaa? walaal jigjiga Oromo ma joogto dowladda deegaanka ka tirsan hadda information ka dhalaysaa shalay madaxweynaha deegaanka iyo dadku abaabulay oo kooxda booliiska iyo kooxda kale ee la yiraahdo gaangistariinta ayaa dad shacaba iyo bangiyo iyo dukaamo ay leeyihiin dad Ethiopia kale ah ayay bilaqaysteen dadna way gudeen kiniisadana way gudeen marka shalay intaas ka dhacday maanta wax ka dhacay ma jiro magaaladana ciidamada maamulka meesha ka jira ka qaatay booliiska ayaa gacanta ku hay. hadda marka idinku diiradhaba baad joogtaan shir baa ka dhacay ma waxaad haatan leedihiin maanta ma jiraan wax ama dad Oromo ah oo jigjiga wax dhibaatooyin ka geystay? walaal ma kama geysan karaan Oromada saadayda sanad ka hor baa laga soo bixiyay magaalada jigjiga badankood dad yar oo tiro yar baa ku sugan oo ah ku sugnaa Ethiopia kala ah xamaaro iyo wadaadda dowladda kale Ethiopia waa dadkii shalay la beegsaday ganacsiyadooda iyo gawaarigooda meel kiniisada ay ku xariisay baa maqlay. marka Oromo xaafado degan oo jigjiga oo wax weeraraysa ama ismaamulka Oromo iyo jigjiga kama tirsan waa deegaanka Soomaalida caasimaddiisa. waayahay marka maxaa war ah oo laga hayaa halkee buu ku sugan yahay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud? walaal xubnihi ugu dambeeyay keenay magaalada jigjiga ku sugan yahay waxaana laga yaabaa ilaa Bristol xaaladdu isbedesho oo ama sabis cadilo ama shaqada dowladda Ethiopia ku muqayso wararka hadda soo gaaray waxa weeye in ciidamadii booliiska xeriyahooda ay ku noqdeen magaalada ay degan tahay asaguna odayaal wuxuu sheegay in shacabku doono inkastoo aanan hubin oo taliya marka intuu kaga dhawaaqayo in la qiyaasi karo ama waxa uu yiraaho hadalkiisa lagu kalsoonaan karo oo sanahay. waayahay ugu dambeyn marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo rabshadaha noocan dad baa ku dhimanaya kuwana ay ku dhaawacmayaan xalku muxuu ku jiraa sidee rabshadahan lagu soo gabagabay karaa? walaal rabshadaha waxaa lagu soo gabagabay karaa hal nin oo dictator oo xukunkeedu ka dago talada 8 milyan taladoodina asagu 12 sano si xeeb u haysta haddana raba shacabka iyo ama dowladda iyo maamulka meesha ka jiray inuusan ka dambeyn asaga haddii markuu ka tagayo aeroboortkii uu qabso oo burburiyo ayaa meesha ka jira. marka ninka haddii laga qabto waxaan aaminsanahay inuu wadanku iska xasilay dadku waa dad nabadgelyada jecel ammaanka jecel dad
dowladnimada rabo weeye. marka shacabka waxaan leeyahay amnigoodii kala dambeyn tahay ilaashadaan. cabdi maxamuud cumar asagu dowladdii ma aha, waa hal shaksi uu ka yahay. dowladda shacabka iskale, hantida dowladduna waa hanti shacab. maxaa yeelay xasuuqii shacabka lagu iibiyey gawaarida, xafiisyada, wax walba waa ilaahay waxa lagu xabdinaysa wax dariiqaa iyo wax booda xabsiyadii dowladda aysan ka dhahayn. inkasta oo aysan maamul rasmi uusan hadda ka jirin degmooyinka iyo gobolada deegaanka oo wixii maamul ahaa iyo askarihii jiddiga la yimid, haddana waxaan leeyahay ugu baaqayaa dadka deegaanka ee degmo walba iyo gobol walba degan maamul ayaka matala inay samaystaan, baabuurtii iyo hantidii dowladdana ay ku shaqeeyaan. kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cali oo ka mid ah soomaalida ku sugan magaalada diiradhabe ee ismaamulka soomaalida Itoobiya. sidoo kale jigjiga waxaan la xiriirnay qaar ka mid ah dadka taageersan madaxweynaha ismaamulkaasi Cabdi Maxamuud Cumar. waxa ay ka gaabsadeen in ay warbaahinta la hadlaan, hase ahaatee waxa ay sheegayaan in gudaha magaalada jigjiga Oromo ku sugan ay maanta guryaha u galeen qaar ka mid ah Soomaalida halkaasi ku dhaqan, ayna dileen dad ka mid ah dadka degan ismaamulka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan magaalada jigjiga. ilo madax bannaan amaba dad kala duwan oo aan la hadalnay waxay inoo sheegayaan in Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya lagu wado in isbedel uu la yimaado saacadaha soo socda. tani waxay imaanaysaa kadib markii ay iskhilaafeen madaxda sare ee Itoobiya iyo isaga. shalayna halkaasi waxaa gaaray ciidamo ka mid ah militariga federaalka Itoobiya oo si xoog ah ku galay magaalada jigjiga. afhayeen u hadlay ciidamadaasina waxa uu sheegay in ay ka hortagayeen rabshado.